jidkaas inaan idinku geyno idinka meel aad ka sii wadi kartaan haddii ilaahay waxaa laga yaabaa maadaama aad halkan joogtaan intiina badan in aad social media iyo facebookyada ka akhrisaan waxa waddanka ka jira in wanaagga iyo xumaanta laydin sheego inay xumaantu badan tahay waxaan rabaa inaad ogaataan meel walba oo aan tago dunida korkeeda iyo qof walba oo la kulmo waxay aaminsan yihiin dunidu iyo dadka Soomaaliyeed oo dalka jooga intooda badan inuu dalku u socdo meel sax laakiin ay hor taagan yihiin caqabadahaas loogama gudbi karna haddaan isdhiibin gabadhii halkan soo istaagtay waxay tiri maalmihii la soo dhaafay maalan seexan waan daalnay marmar baan shakinay oon isdhiibin maxaad yeeshaan way awoodeen inay isdhiibaan ay yidhaahdaan ra'iisul wasaaraha halkan laguma soo dhaweyn karo way awoodeen inay yidhaahdaan laga yaabo inaan isaga xasuunama dhib ay noo keenaysaa annagana kala qaybinaysaa laakiin waxay yidhaahdeen maya waa inaan xallinaa dhib walboo na hor taagan taas ayaa kaliftay inaan halkan taagannahay idinkoo boqolaal qofna aad dhegaysanaysaan iyagana ay taariikhda u geli doonto sidaas daraaddeed waa inaan la isdhiibin waa in dhibka loo adkaystaa waa in la isku dayaa inaan dadka naga dambeeya annagu aan nahay kuwa hormuudka u noqon lahaa gabar walba iyo wiil walba Soomaaliyeed waa inuu og yahay inaanay nolol wanaagsan kaligaa wax kugu tarayn inaadan sharaf yeelanayn haddii dalkaada iyo dadkaadu sharaf lahayn in cidna aanay difaacin dalkaada haddaanad adigu difaacin dhaqankii ahaa in wax la dumiyo waa inaan ku bedelnaa dhaqanka wax la dhisaayo taariikhdu waxay naga qori doontaa maxaan dalkeena u dhisnay ummadda Soomaaliyeed waxay nagula xisaabtami doontaa maxaan dalkeena iyo dadkeena ka duminay kuwiinan halkan jooga oo nolosha fiican haysta oo aqoonta annaga naga badan leh waxaa insaaran mas-uuliyad ka weyn kuwa kale dowladnimadu ma aha inaad ku fadhi ku dirirtaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre xalay maxay sameeyeen dowladnimadu ma aha inaad ku fadhi ku dirirtaan go-aankii shalay la gaaray qabiilkayga ma u wanaagsan yahay ma soo xun yahay dowladnimadu ma aha inaad ku sheekaysataan dowladnimadu waxa ay tahay inaad tirahdaan dalkeena annaga iskale annaga wax ka qabanayna annaga u istaagayna runtaan idiin sheegayaa dalka Soomaaliyeed waa dalka keliya oo xuduudeena ay Soomaali keliya joogto markaad Jabuuti tagtid Soomaali baa joogto Ethiopia markaad tagtid 7 milyan oo Soomaali ka badan joogto dhulku ugu weyn iyaga tagay Kenya markaad tagtid 3-4 milyan oo Soomaali ah tagay halkan intaasaa joogta wasiiro iyo xildhibaano ayay Yurub iyo meel walba ka yihiin fursadda ummadda Soomaaliyeed ay leedahay dal lagu yaryahay laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed indhahooda inay furmaan waxaan rabnaa haddii ku dhowaad 30 sano aan kala qoqobnaan iyo fadhi ku dirir ku soo bixinay waxaan idinku codsanayaa sanadaha soo socda inaan Soomaalinimo ku bixin waxaan rabaa marka inaan ogaano kulligan ma rabno inaan noqono dad ku nool dal barwaaqo ah oo haddana ka baahan annagoo ah dad isku mid ah isku af ah isku diin ah isku dhaqan ah isku hiddo ah isku abti iyo ilmo adeer ah oo haddana col ah oo iyaguna isku nacay ma rabno in adduunyadu ay noo daawato sidii riwaayad way heleen adduunyadu inay noo daawadaan sidii riwaayad ku dhowaad 30 sano waxaan leenahay ku dhowaad 30 sano ayaa dunidana ku filan annagana doqonnimo noogu filan waxaa la soo gaaray waqtigaan dowladda Norway waxaan uga mahad celinayaa
in ka badan 40,000 oo qofood oo Soomaali ah ee dalkeeda ku nool waxaan rabaa idinkeena marka idin sheego dad badan oo Soomaaliyeed oo halkan joogi jiray oo anigu aan ka mid ahay oo Cabdiraxmaan uu ka mid yahay halkan fadhiya oo la taliyaha dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha halkan meelo badan ka soo shaqeeyay iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halkan ka tagay ayaa waxay ka hayaan shaqo weyn dalka Soomaaliya oo qayb weyn ka ah dib u dhiska ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya idinka madaxda oo ururka ardayda Soomaaliyeed qayb ka iyo ururada kale waxaa la ka rabaa inaad og tihiin taasi inay tahay qayb ka mid ah taariikhdeeda laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego waqtiga halka aan joogtaan waxaa laga yaabaa inuu waqti yar yahay oo marka ugu dambaysa dalkiina aad ku soo noqon doontaan halkan inta aad joogtaan waa inaad la qabsataan waa inaad iskuullada gashaan jaamacadaha gashaan la tartantaan dalka halkan joogo oo dalkooda iyagu u dhashay sababtu waxay tahay haddii aan si dhab ah isugu wararno qofka halkan jaamacad ku dhigta dhameeya wax intuu ka barto shaqo ka bilaabo khibrad ka hela ama ganacsi ka abuura ama ka shaqayso waddankan ee dhaqaale ka sameeya kaasaan uga baahannahay inuu waddanku ku soo laabo marka inta halkan aad joogtid waxaa laga rabaa inaad ogaatid dalkaada inuu ku sugayo laakiin waa inaad ka jawaabtaa su-aasha ah marka aan halkan ka taga dalkayga maxaan ku tari karaa oo ku sugaynaa waa kula xisaabtamaynaa markaad soo laabanaysa waxaan kaloo rabaa inaan sheego dadka dibadda ku nool iyaga la-aantood ummadda Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qaar badan oo kamid inay gaajo u dhiman lahaayeen lacagtaa bil walba usoo dirtaan hooyayaashiin iyo aabayaashiin macno male meesha ay Soomaaliya ka degan yihiin waxay qayb ka tahay badbaadada dalka iyo ummadda Soomaaliyeed waa sharaf iyo karaamo in idinkoo halkan fadhiya meeshaan xanta ah dadaalaya aad haddana ka warqabtaan dalkii dadka qurbaha jooga oo dhan waxay soo biilaan waalidadood iyo qaraabadooda waa muhiim ilaahay baa ajir idinka siin doona waxaan idin leeyahay sii wada sii kordhiya laakiin waa inaad ogaataan haddii halkan idinkoo jooga aada gobol iyo qabyaalad u kala qaybsan tihiin ilaahay inuu idinkula xisaabtamaayo dalka iyo dadka Soomaaliyeedna inaadan wax tari doonin haddii idinkoo Yurub fadhiya aada qabyaalad u kala qaybsan tihiin haddii aad dallada ka qaadataan roob Soomaaliya ka da-aya markaad noo timaadaan dhibaataad noo keenaysaa fadlan dalladaha qaata marka roobku uu osle ka daaya ha qaadanina marka uu xamar ka da-ay ummadda Soomaaliyeed waa sida geedka oo kale sidaan isugu xirannahay aan u kala maarmin waa meesha xididada geedka uu ka yahay dhulkeeni hooyo waa meesha jiridda geedka ay ka tahay shacabka Soomaaliyeed waa meesha laamaha geedka ay ka yihiin qurba joogto waa meesha miraha geedka ay ka yihiin horumarkii aan idin tilmaamayo oo aan rabo waddanku inuu tago mid aan laga cararin oo loo soo cararo mid shidaalkiisa ku munaafacaadsaday iyo beeraadkiisa iyo khayrihiisa mid dunidu ay isugu timaado mid leh cadaalad iyo nidaam dowladeed oo dhab ah haddii marka ay laamaha jiridda geedka iyo xididadu iswaayaan ubax iyo miro ma bixinayaan haddii jiriddu weydo xidido biyaha usoo qaada laamo kama baxayaan haddii xididadu jirid iyo laamo waayaana iyaguna keligood ubax iyo miro ma bixinayaan macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliyeed sidaas ay isugu xiran yihiin meel walba joogaan haddaba waa inaad dalkiina iyo dadkiina dhaqaale maskax iyo muruqba gelisaan si idinkana awood aad u yeelataan oo halkan magac iyo maamuus aad ugu yeelataan ubadkiinuna uu helo waddan ay nolol wanaagsan ku heli karaan soo
أنا وهديان سومالي نهاي ميل والبوان جوجنا ما كلمارم فرصة دان لين نهاينا إدلا مجرتو قبلها يويلش يضياش هالكين جوجا وحان إدلا الله تاريخ دا مالي شوقي دون ما أنت ضل كأن السيدة أن قوضنا أي واحد كتر جيب دون تا قرنية صوصه ما أنت السيدة عندهم قرنا قنطان أي دولة بنود سومالي دو كان دون تا هدي أتسي ودان لقن كيا هاينا ضلديه حمرك كدا أي أدوتان ماشي أنت أجنارين هدي لكن أترادان صدق كي سنة لصورة فيك كدوا ده ينغفرن عن سلاي هاي رجوين بالله كوا حمر يقبل الصوماليات جوج أردن وحليهين هذا وحم مضيفتين بقول كي بتضباطن يشام شعب الصوماليات ميرول بيجوجان وادنا اللي يرو دلوا كير تاعي صدق صام دتكاس وحلو بعيين كوا إن مسؤول كان أنا مصمم الصومالي كدون الصومالي هذا عنده مركا وحنلاقي هاي سيدي هستي وسبعي أبوان كي قاضي بشير على حسين معناه لو حي تاي صومالي هدي أن هاي مدي جاي بدح لما كمالتها مدحو من جهة ما كمالتها مسكحي أقوان ما كمالتها وماذا من نما ما كمالتها ما من دول نما ما كمالتها نبذا معان ما كمالتها ونجيل أي أود وصل يسمع وحقبت باهر ومرنا جالسين كرا وكلا قبنان توهو وعاتين لفظبر كدول لماذا مستقبل الصوماليات فضلا اسكيل لا بوحي ورا لي بوشاغي لقب صد الصومالي هذا سبحان الله شاغني ان دسمو دلكيدين كان اسكو ريجيلين وما تنسي